ummad waxaa loo ilaaliyaa qiyamka ay leeyihiin valueska xitaa sacrifice aad u samaynaysaa waa tana hadda kuu sheegayo oo kale adiga isla weynidaada isla weynidaada keliya oo hebelaa iska dhicina ama reer hebelaa iska dhicina it's not about you keligaa maaha waxaan wadan waayo waxa laga hadlayo 30 million dad bahalkii iyo ilma aan hadda dhalana iskale meeshaan haddii aad qof isla weyni badanoo in lasoo babariyo haddaa tahay you have no job being here inaad timaadaba ma ahayn oo dadka inaad barida waay aniga markaan guddoomiyaha gobolka ahaa wixii laygu dhigaya ilaaha ogaa laakiin haddana shacri mucaawiyaan samaynayo inta raalli noqo inta mar waxaa ogahay reerkayga oo dhan inta ii yimaadeen la yiri fulaynimaadu ma ata inta maxaa waay inta inaad sidaas nagu samaysa ma ahayn reerkii wallaahi billahi waxaan ku iri reer dhan oo hal qof uu fulay ka yahay maxaa dhib oo ileeda an lay fulay misin ku iyaha an fulaynimada in ogolaada isin dhon geesoo beeting maysin ku dhibaas an fulaynimada faday an in ogolaada way waxaan diiday qof kale inaan dhibaateeyo oon xoog u sheegto maxaa yeelay waxaan heli karay xal kale oo aan wixii ku xalliyo ayadoon dadna dhiman maalinka xilka soo wareejinayaan odayaasha waa u sheegay wallaahi shiraan ka sheegay waxaan ku iri wareedha sidaa iigu dhiibateen ama idin dhibaateeyey maya dadka ama idinka dhibaateeyey maya so qiyamkay ka mid tahay in adiga aad sacrifice samayso oo kabshi daxiya aad adiga noqoto oo isla weyni inta iska dhaafto marmar xitaa naftaada ayaa halis ku galaysa yacni waxaan xusuustaa anoo markaas ku cusub meesha ayaa waxaa la yiri tiimkaasaa meeshaas kugu shiraayo balaayay soo wadaan dagaalay kugu soo yihiin inta wallaahi markhaati bay leedahay keligeeyaa baxay waa la dili karay xitaa ayagii hubkoodii waxoodaan u dul tagay salaamu calaykum sahayta lankiisin ingoodiyaasano weerara ka qaadan dhahay tan anu aha anii basiin kooy isla dawaano waa dhex fariista see because adiga it's not about you again adiga ma aha waa ummadda waa adiga ummadaa u shaqaysaa fiiri Socrates nin la yiraahdaa waxaa la yiri philosopher waa Greekii hore waxaa la yiri waa lagu dilaa maxkamadda waxay ku xukuntay niyow adiga dadkiiba maaragtay warkaaga batay dhalinyaradii baad maaragtay marin habaabinaysaa maxkamadda waxay kugu xukuntaa la yiri sida la sheegay sun inaa cabtid waa loo yimid waxaa la yiri haye aan ku fakin dhalinyaradii aa u timi marka in laga gardarnaayo u jeedee kaasaa wuxuu yiri maya ma fakarayo ma baxsanayo waayo gadaashay sharciga inuu shaqeeyaan rabaayo dhahay oo Greece sideeda ay ahaato oo aan aniga keligay u noqon sabab ay wixii u kala daataan ninkaas gaal u ahaa sheego kale waxaa jirta oo wiil baa wuxuu dilay nin odaya dhagax ku dhuftay oo geeliisa dilay isna maxkamad baa la soo saaray Cumar ibn Khattab ayaa khilaafadiisu ay ahayd oo markaas ahaa amiir wiilashii waxay dhaheen waa naloo qisaasa oo aabbahooda la dilay qisaaskii aa ku soo baxay ninkii waa la xukmiyey wuxuu yiri aad ba idisheere waxaan rabaa inaan xoolo aabbahay uu ka tagay oo aniga kaliya aan meel ku ogaa jira xoolihii baan rabaa inaan siiyo dadkii u soo sheegaan soo dardaarmo waa tahay waxaa la yiri adiga nin xukmiyaa tahay oo maxkamad la saaro oo go'aan laga soo saaray yaa ku yaqaan markaasuu yiri maya aniga magaaladan ehelkeeda ma ihi soo qof taqaan male markaas la uriyaa damiinanaya dadkoo dhan markay aamuseen Abi Dharr al-Ghifari yiri anaa damiinanaya ataqaana maya ma hubtaa ha haddii isaga la waayo adaa lagu dilaa ogow haye ninkii waa la fasaxay 3 days 3 maalmood uu codsaday 3 maalmoodaa la siiyey 3 maalmood markay gabagabay yihiin fiidkii lagu ballamay la gaaray Cumar wuxuu yiri soo dhawo waa sharcigan sheegay moogta Abi Dharr saaxiibaan nahay inta asaga ma sameyn ma jirto soo dhawo waa la yiri lagu dilay
wiilkii oo ordayaa yimid dadkoo dhan ayaa waa la weydiiyey waxaa la yidhi war maxaa u dhuuman weyse maxaa ku soo celiyey fulinta axdiyada inay meesha ka baxdaan ka cabsado gadaashay lafayga waa la dhuuman karay laakiin waa valuegii ogow fulinta axdiyada inay meesha ka baxdaan ka baqay buu yiri gadaashay oo muslimiinta ay arrintaas u dhibaatayso abu dharra la weydiiyey maxaa adna ninkan maba taqaanida aad in lagu dili lahaa hadda waa sigatay waay aad u samaysaa layidhi markaasuu yiri waxaan ka baqayay ummaddii khayrkii baa ka dhammaaday muslimiinta in la yidhaahdo wiilashii waxay dhaheen waa cafinay markay arkeen dadkaanoo dhaqankooda noocaya bes waayay dhaheen annagana waa cafinay waxaa la yidhi waa u cafiseen haddaaya naloo dilaaba lahaydeen waxaan ka baqnay dhaheen iscafintiya meesha ka baxday in dadka ay iscafiyaan in la dhaho these are values ninkaas gaal u ahaa nimankan waa muslim waxa loo doodaya naf ma aha qof ma aha waa ummad qof walba wuxuu leeyahay aniga aan dhinta laakiin gadaashay baan ummaddii so this is hoggaanka waxa looga baahaya waxaa waaye lafihiisa ma aha markuu meesha ka tago waxaa la rabaa valueska ummadda inuu ilaaliyo oo uusan jidayn wax cusub oo qaldan oo gadaashiis mid ka yimaada uu asna uga daydo ama waxba kusii daro oo taaka iyo dhudhun iyo uu kusii darsado